طالية كسودو حصلان هذا وديال عطب كترسن عيدن كفردها iyo dhamaan ciidankii mashruuca ka shaqeynay taliye kuma koobna shaqada ciidanka booliska Soomaaliland sugidda amniga ururunta dakhliga sugidda cadaaladda la dagaalanka mukhadaraadka iyo arrimaha kale balse dhanka dalagga iyo wax soo saarka waxay ka yihiin qayb muhiim ah waxaanay mashruuca wajaale ciidanka booliska Soomaaliland ku leeyihiin beero ay ka soo saaraan dalagga kuwaasi oo wax weyn ka taray baahidii wax soo saar ee ciidanka iyo guud ahaanba dalka taliye anagoo fulinayna amarka taliyaha ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iibaan iyo kan hoggaanka saadka iyo maamulka lacagta waxaanu taliye mashruuca ka qodnay 894 saacadood oo taliye u dhigma 223 hektar oo taliye iskugu jira haruur iyo galey iyo heed iyo basal toon tamaandho digir baradho سليد سنفراول سليد معصرة يا سلبوكو دقير سلبوكو تالي سيداد أمريكا نفرتي إنه كدولة أمريكا مدحوينها إيه وحصو صارك لين فرينا وحصو صارتان أنا قلت لي دالك يجي وانو موجناي وانا نكسو تشوشنو واتسو أركتي تالي وحي أنو قدناي هالكن كوشيكناي farduhu waa qayb ka mid ah xoogga ciidanka booliska Soomaaliland ku faano isla markaana waa horseedka hirgelinta iyo taabaqaadka ay ku talaabsaday mashruuca beeraha wajaale ee ciidanka booliska Soomaaliland waxa ay farduhu ka yihiin xoogga koowaad ee lagu daryeelo laguna ilaaliyo sida joogtada ahna u kormeera dhulka mashruucaasi uu ka beeran yahay asaaskii mashruucaasi habkii uu ku bilaabmay sooyaalkii taariikheedu soo jiray iyo hanaanka horumar ee uu soo kordhiyay ciidamada booliska Soomaaliland ahmiyadda mashruucaasi waa mid kaalin weyn ka qaadan kara horumarka dalka Soomaaliland waxaana uu yahay mashruuc si weyn loogu faano isla markaana kamid ah mashaariicaha taabaqaaday ee ciidanka booliska Soomaaliland ku talaabsadeen ee dhinaca wax soo saarka waxaan tilmaamayaa mashaariicdan ciidamadu ay hayaan gacanta ku hayaan qaabkii ku yimaadeen iyo sida ay ku bilowdeen Allahu naxariistee 1993 xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal wasiirka arrimaha gudahana uu ahaa Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu ku dhaliyay in dawladdu la wareegto madaxweynihii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal isaga amarka ku bixiyay ciidamada ku soo kiciyay saddexda ciidan buu qaybiyay qaybta bariga oo wadada laamida bari ka xigta waxa la guddoonsiiyay oo gacanta ku haya bilayska nasiib wanaag saddexda mashruuc korka aad eegto ka wax soo saarka badani waa ciidanka bilayska kan bilaysku gacanta ku hayo oo sanad walba arkiifyada ku jira wixii ka baxay iyo sida wax u baxeen waa kii u horeeyay kolkii abaartu dhacday dadkii u soo horeeyay halkii ay ku nasteen ay ku degeen ilaa haruurkii ku yaalay la yidhi madaxa ka gurta balkana xoolaha siiya waa kii u horeeyay dadkii jilicda sanaa ay kaga baxeen waxaa ka soo hadhay ee imaka xoolaha u ihi halkay ku nasteen ay ku degeen ay ku gaajo gooyeen ba waxa aynu ilaa saaka marayni labadaa cagafee duugeehee daalay baa wax lagaga qabtay hadday rogaal tahay iyo hadday shiniyayn tahay iyo hadday mid walba tahay waxaa dadkii dusha ka eeganayay kolkii ay tuugo iyo xoolo ay habeen soo geliyaan iyo maalin mashruucaa ballaaran kolkii dhan walba ka soo galeen waxaa la abaabulay shidaal baabuurna aan loo taaghay aynu wada itaali yaraynoo
cashuuraheenna iyo wixeennuba ay ahayn waxaa la abaabulay fardaha arkaysaan la iibiyo si loogu ilaaliyo mashruuca dhulka cidda wax ka soo saarta waa iyaga waddadan imanka inaga dambaysa halkaa wajaale kolka ka soo baxda ilaa hargeysa kantarool ma marto khamrigan iyo mukhaadaraadkan carruuraheennii lagu waalay ee meel walba cararaya waa waddadu maro taasay habeenkii u galaanoo abaalmarin miidhan jananku ku soo siiyey qabashadii ay qabteen